xaflad lagu abaalmarinayay shakhsiyaadka ku guuleystay abaalmarinta shirkadda Tennis ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi. xafladda abaalmarinta oo ay ka qayb galeen wakiilada shirkadda Tennis ee wadamada Bariga Afrika ayaa waxa isugu jirtay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegatay markii shirkadda Tennis ay xafiis ka furatay dalka Kenya iyo abaalmarinta shakhsiyaadka shirkadda ee ku guuleystay gawaarida sanadii 2022. madaxa shirkadda Tennis ee qaaradda Afrika Mr. Jia iyo madaxweynaha shirkadda Tennis ee dalka Kenya Mr. Dan ayaa 70 gaari ah oo abaalmarin ah guddoonsiiyay xubno ka socda wadamada Bariga Afrika ee shaqo wanaaga iyo howlkarnimada muujiyay. We are gathered together today because we have the same dream and same goal, which is to help people live better lives. Health, youth, wealth. qaar ka mid ah dhalinyaradii ku guuleysatay abaalmarinta gawaarida iyo qaar kale oo ka tirsan shirkadda Tennis ayaa TV-ga kalsan la hadlay iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay qayb ka yihiin isla markaana ay ka howlgalaan shirkadda caalamiga ee Tennis. waxay shirkadu noo ballan qaaday inay Afrika ku ballaarin doonto 12 wadan oo cusub inay ka furi doonto inay support iyo adeeg gaar ah siin doonto haday tahay xagga wax soo saarka xagga tababarka iyo xagga ganacsigaba runtii waxaan niyahaynaa fursad aad noloshiina ku bedeli kartaan nolosha familigiina ku bedeli kartaan qof kastoo rabitaan lana uu dhaqaale iyo hanti iyo caafimaad iyo bulsho qiimo leh iyo aqoon iyo aragti intaba kaga heli karo nagu soo biir baan ku leenahay shaqada bilaabada gaarigu wadaniisii gaarigu leeyahay $15 sanadkii xafladda ka qayb gal marka go'aanka soo qaatay isla bisheedii waxa lagu abaalmarin gaarigii koobaad oo soo laashay isla shaqada guurka gaaro horumar sameeyo kala weerkii kaalin ka sameeyay maanta waxa ka gaaray natiijada fardo sidaas waxa la sugnaatiin waa shaqo guusha waxa ay radana maanta xirfadahay oo isweydiin doonto shaqada si guurka gaara maana garanay meel laga bilaabo war way fududahay shaqada waa baran kartaa xirfadaha horumar raadinta ka weeraa antani maanta waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mahad celinayaa ii sababay inaan ka mid noqdo dadka abaalmarinta gawaarida ku guuleystay shirkaddan Tennis waxaan ka shaqeynayaa hadda almost 4 sano ka shaqeynayaa alxamdulillah waxaan ka aaday 2 dalxiis ayaan ka aaday dalxiiska hadda u dambeeyay shirkadda waxaan ka aaday Indonesia waa international iyo local labadaba waan ka achieve gareeyay weekly bonus kayga iyo lacagtayda isbuuclaha aan qaadanayne waa easy dairy maanta hadda meeshan waxa ku gudoomaya oo lagu abaalmariyay waa gaarigayga 1 milyan iyo 140,000 oo Kenya money ayaa halkan lagu gudoonsiinaya alxamdulillah ilaahay ayaan u mahad celinaya dad badan ayaa jira maanta ayagana rabin dadka kale inay horumar ay gaaraan meelaha ay ku guuldareysan ama ku fail garoobeen ay waxay leeyihiin maadaama adiga ku fail garoo adigana waxba kama heli kartid anagoo nala dhahay waxba lama heli karo ayaa maanta gaari ka qaadanay ka soo xajinay cimri aan ka aadnay oo maxay ahayd dalxiisna aan ka aadnay xaqiiqatan waa meel qofka riyaasi oo leeyahay dab meesha kaga dhabayn kara ee tahay waxaan leenahay hadda u baahanta isbedel hadda u baahanta horumar adigoona dib isku dhigin adigoona excuse badan aan la imaanin xaqiiqatan meeshan ayaa ka sameyn kartaa waxaan leenahay nagu soo biir waxaan leenahay noloshada ka bilow meeshan better Tennis better life ayaa leenahay runtii waana program ama waa xaflad lagu soo bandhigay dadka sanadka 2023 ka gaaray kamariga guulaha waaweyn ee ka mid yihiin abaalmarinada dalxiiska ay ka mid yihiin abaalmarinada gawaadhida runtii anigu waxaan nasiib u yeeshay sanadka inaan ka mid noqdo dadka ku guuleystay abaalmarinta gaariga shirkadu maalintii gaariga koobaad ka qaadanaya maaha aniga gaariga koobaad waxa ka qaatay 2019 ka qaatay anigu Restara hadda gaariga labaad baan qaadanay hore waxaan u qaatay $10,000 baan u qaatay haddana waxaan u qaatay waxa weeyaan waa $15,000 Tennis waxa uu guuleystay dalxiis nolosheeda ku bedelay aqoon badan baa ka helay caafimaad baa ka helay aragti baa ka helay bulsho midaysan baa ka helay waxyaabo far badan baa ka helay waxa ilaahay mahadiisa in teamkayga ay maanta igala qaadanayaan gawaari dadka badan 5 qofood iyo ka sii badan waliba aan jooga Kenya igula qaadanayaan dad kale Muqdisho joogana ay qaateen waxaan mahad iska leh inuu nadweygayga oo gaarayo caalamka oo dhan Afrika iyo Aasiya waxaan Tennis aan ka bedelan noloshayda oo dhan alxamdulillah 13 qofood ayaa ka mid ah dadka aniga farcamay ee abaalmarinta gaariga qaatay dadka dalxiiska helana tirahan ma gaari karo global shirka 12 qofood weeye African shirkana tira kale oo aad u badan waa ilaa 30 qofood weeye dadka dabkooda ka shitana lama koobi karo dadka xanuunsanaa dawladda isticmaalay ku caafimaadana aad u badan ku dhawaad 20 qof oo Soomaaliya ayaan ka mid ahaa stage-ka soo istaagay oo guuleystay abaalmarinta uu kambanigu bixiyay ee gaariga taasoo qiimaheedu ay tahay 1500 oo maxaa la dhihi jiray $15,000 $1.7 million Kenyan shilling
Tainis waa shirkad caalami ah oo Shiinaha laga leeyahay waxayna xarumo ku leedahay in ka badan 190 wadan oo caalamka ah. Shirkadan ayaa waxaa la aasaasay sanadii 1995 waxayna shirkadu soo saartaa daawooyin dhaqameedka ee dalka Shiinaha iyo adeegyo kale oo caafimaad ah. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.